dhawaan ay ahayd markii xildhibaano ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay mooshin ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ahna hogaamiyaha ummadda Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Maxamuud ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari xildhibaanadan oo tiradooda gaarayso 94 xildhibaan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu ku tagrifalay awoodihii qaranka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre marna soo maray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda wuxuu hogaaminayay Cabdiwali Sheekh Axmed ee baarlamaanka Soomaaliya oo kalsoonida kala laabtay haddana kamid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagrifalay awoodihii qaranka Soomaaliya oo ay kamid tahay xukuumadda maxkamadaha baarlamaanka sidaas darteedna looga baahan yahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud inuu isaga dago xilka ummadda Soomaaliyeed xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa carab ku dhuftay haddii Soomaaliya ka jirin maxkamad dastuuriya ay booska maxkamadda dastuuriga u taagan tahay maxkamadda sare ee hadda ka howlgasha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayna qaadi doonto mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud halkaasna wax badan ayaa lagu qaban karaa laakiin waxa laayo madaxweynaha ma aha qofka laga sugay waa xukuumadda madaxweynaha waxyaalaha dastuuriga lagu eedeeyay oo eedda xilka loo qaaday waxa kamid ah in uu faragelin ku sameeyo joogta hay'adaha kale ee dastuuriga sida maxkamadaha sida muxuu ahaa xukuumadda sida baarlamaanka laftirkiisa anagu waxa aaminsan hadii madaxweynuhu uu sii joogo biyadaati dabadooda la qabtaa in aan inta noo hartay wixii aan ka qaban karna aan laga karin muxuu ahaa dhaqankiisii faragelinta ahaa ma aha faragelin oo yaani ma taqaanaa dhinaca wanaagsan ah laakiin waa asugu shaqada la wareego oo tii baarlamaanka uu la wareego oo tii xukuumadda uu la wareego oo tii maxkamadaha uu la wareego oo tii amnigeena sugidda uu la wareego asigana waa ku dhibtoonaya ummadina waa ku dhibtootay marka muddana waa ka waaninaynay oo ma taqaanaa yaani siyaabo kala duwan xubnaha baarlamaanka talooyin badan iyo waana badan iyo nooc walba ku yimid ayaa lagu hayay marka waqtigu waa hadda waqtigii oo yaani umrigiisu uu madaxweynimo soo gaaban lahaa waa waqtiga hadda la joogo marka hore annaga baarlamaan ahaan xildhibaanada hadii ay mooshin keeneen iyo hadii kalaba waxay aaminsan yihiin inaysan jirin muxuu ahaa wax aan sharci Soomaaliya aysan u lahayn yaani waxaan afqalaad lagu yiraahdo vacuum oo sharciga dhexdiisa ma jiro wax walba mas'ala kasto timaado waxa baarlamaankeenu aaminsan yahay inay mas'alo yaani sharci leh ay tahay mar hadii saas ay tahay lama dhihi karo wallahi maxkamadana maqan iyo xagga maqan iyo xaggay tahay saas daraadeed madaxweynuhu waa inuu iska fadhiyaa wuxuu rabana uu sameeyaa lama dhihi karo waxaan aaminsanahay madaxweynaha laftirkiisu anna mas'uula inuu garan doono inuu wadanka u naxariisto oo xilka meeshaas asiga laftirkiisu uusan gaarin ilaa maxkamad la geeyo waa leenahay maxkamadda dastuurka leenahay maxkamadda sare ayaa maxkamadda dastuurka noqonayso shuruucdeena saasay tahay siyaasiyiin badan oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhalisan siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ku hogaamiyo talada ummadda Soomaaliyeed balse lama oga mooshinka ka dhanka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud